صدقي ويقصوا حد قدبا وحيابا الله وسرالي كأهن أيو دونايا إنو سميو ها وحيابا إلهي وسرالي كأهن أيو دونايا إنو سميو حدودي سوو صودافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان والله على كحرين channel كانوا كسودوا هذا فيديو عصب عدي أي تايمر كوجو رسوك كسو جاري channel كان محاكا عدسنا إنا سبسكرايب نقدر رجلسيد آدي آذا كجم هدعلنا يا داوشة الفيديو كان أداوين السيد وسودوا يا أصحاب عصب channel كانوا كسو بيرتي آدي آذا أو فرحسنا آدي آذا أو فرحسنا هاي سودوا هذا إذن لي هاي channel كينا واهي سي شير جرايا قبل دينا واهي شكوين كذا كهشان لايك صار فيديوغا شكوين كلا channel كوجيرنا daawada aad iyo aad u mahadsantiin sidii caadada ahayd waxa idin xasuusinayaa in sheekadani aniga aysan i quseynin ayna tahay ila tali oo la soo wadaagay marka waa bilaabayna gabadhan waxay leedahay waxaan ahay gabar da'yar waxaan is jeclaana wiil gayaankeyga ah oo wax yar iga weyn adii 4 sano oo kaliya iga weyn waan is guursanay reerkeyga ayuu iga doontay waan is guursanay kadibna waxa dagay guriga familkiisa yani guriga reerkooda dagay aabihiisa iyo hooyadiisa ayaan la dagay bilooyin kadib guurkeeni waxaan dareemay in odayga adeerkay ah uu aad aniga interest igu yahay uu aad ihtimaam ii siinayo waxa guriga igula nool gabdho kale oo walaaladiisa asaga ay qabaan oo reerka igula nool laakiin aniga si gaar ah ayuu ahamiyad ii siiyaa jikada marka ku jiro oo kale waa igula jira xataa mararka qaar waxa arkaysaa asoo qolkayga jiifka dhex taagan waa yaabay markii dambe waxa bilaabay in aniga martay ka iska ilaaliyo waqtiga martay xaafada uu joogo qolkayga ku ekaado oo aan ka dheeraado oo iska ilaaliyo laakiin wixii saxad dhaaf ayay ahaayeen maalinkii dambe waxaan weydiiyay odaygayga in weydiistay in xaafada uu naga kaxeeyo uu guri kale oo gooni ah aadegno laakiin sababtii waa u sheegi waayay oo sabab oo ku qanco waa u sheegi waayay laakiin muddo kadib ku dhiiraday in aan u sheego in aniga aan dhibsanayo aabihiisa oo aabihiisana aad interest ugu yahay oo xoogaa maartay yani waxyaabo ziyaada uu sameeyay gabdhaha kale aan ula mid ahayn wuu yaabay wuxuuna igu dhahay may waxaas ma jiraan aabahay gabadhiisa tahay waxaasna lagama yaabo inay dhacaan mar dambe maarta mawduucaas oo kala hafurin intaas kadib waxa dhacday in anigii aan ku adkaystay in guriga aan ka guurno ninkeyga waa dadka laga amar adag yahay oo waa qof iska daciif ah guriga waa laga amar adag yahay waxa dhacday in anigii marka aan ku adkaystay in xaafada aan ka guurno waa u sheegay waxa ku iri waxa doonayaa in xaafadan aan ka guurno xaafadiyaana naga guuriyay uu noo ogolaaday adeer in xaafada aan ka guurno oo guri kale dariska ah oo guriga ku soo dhagan aad degno laakiin gurigaas aad degnay fursad ayuuba u arkay fursad cusub oo gurigii uu ku imaan karo oo keligay ugu la kulmi karo ayuu u arkay hadda mar walba odaygay xaafad uu ka maqan yahay gurigiisa igu soo garaaca ilaa ay dariska ay maqlaan haddii aad ka furi waay irida waa mushkilad gooni ah balaayo meesheeda taagan waay maalinka irida ku dhageysto oo irida aad ka furi waayo waa mushkilad kale waxa sameeyay ma aqaano xaafada marka ka furana isla waxyaabihii xaafadiisi ooga soo tag ayuu sameynaya aad uu igu soo dhawaanaya mararka qaar xataa gacmuhu ila soo galaya waxa sameeyay ma aqaano aabahay iyo familkeyga ina u sheegay iga heesaa laakiin waxa ka cabsanaya in uu dhibaateeyo sababtoo ah anaga waxa iska nahay dad iska danyar ah laakiin adeerkeygan صدقي ونن هبيسن oo laga cabsado waana nin aad u kulul marka waxa ka cabsanaya in familkeyga uu dhibaateeyo waxa sameeyana ma aqaano idinka ra'yigiina ila soo wadaaga maxaa sameyn laheedeen hadii ay idin qabsato tan aniga ay haysato oo kale okay ani waxa ku darsanaya deg meel asaga aad uga sii dheer ka sii fogow yani xaafada hadda aad degto soo xaafadiisa uma dhawa kasii dheero waa dhihi lahaa idinkan ra'yigiina commentiga kula soo wadaaga aad iyo aad ugu mahadsantihiin daawashada videogan aad daawateen inta video kale oo kulmi doono waxa idinkaga tagayaa fi amaanillah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh